ciidamada liiw booliska dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu gudoonsiiyay xafladii sanadlaha ahayd ee ciidamada difaaca qaranka ee ka dhacday magaalada Jigjiga shahaada sharaf aad u heer sareysa kadib markii wasaaradda difaaca ee dalkeena Itoobiya ay go'aamisay in lagu qabto deegaanka Soomaalida Itoobiya wariye Xasan Cige ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya munaasabadda sanadka cusub ee ciidamada difaaca qaranka wasaaradda gaashaandhigga dalkan Itoobiya ay go'aamisay in sanadkan uu martigeliyo dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay socotay 2 maalmood waxayna ka koobnayd dood cilmiyeed iyo waliba xafladda sanadka cusub dood cilmiyeedkan ayaa waxa lagu soo bandhigay sooyaalkii deegaanka maraaxilkii nabadgelyo darrada hagardaamooyinkii lagala kulmay tubihii loo maray halganka la gal nabadiidka iyo guulihii laga sooyay dood cilmiyeedkan oo si cilmiyeysan loo diyaariyay waxa qormadan oo lagu qoray luqadda Axmariga oo soo jeedinaya ka qaybgalayaashan oo isugu jira wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dalkan Itoobiya saraakiisha sarsare ciidamada difaaca qaranka odayaasha iyo mas'uuliyiinta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar iyo waliba saraakiisha sarsare ciidamada difaaca qaranka iyadoo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar uu sharaxaad dheer ka bixiyay tacadiyadii iyo dibindaabyadii ay maamuladii Xayla Silaase iyo dargiguba ku hayeen shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya iyagoo xitaa aan u ogoleyn wax xuquuq ah markastana kabaha la dulmariyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar ayaa si qoto dheer looga warramay 1983 markuu isbeddelku ka dhacay dalka sidii hogaaminta xilligaas talada deegaanku ay gacanta u gashay ay u beerdarayeen yaayirooyinkii dib u helidda dimuqraadiyadda iyo ay ka tashigay oo ay qoomiyadaha kale dalkan Itoobiya bilowgiiba ay la shanqaadeen ka faa'iideysiga isbeddelkii PRF ay dalka ka iftiimisay iyadoo wixii ka horreeyay 1999 ka tirsiga Itoobiya guracnaantii iyo bacsanaantii siyaasadeed deegaanka ka jirta ay sabab u noqotay in nabadii deegaanku ay noqotay wax cirka ku faruur xidhan iyadoo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar madasha ku soo bandhigay xaqiiqooyin cadeyn u ah mushkiladihii aloosna ee waqtigaas ka jiray deegaanka sidaas awgeedna waxa deegaanka daashaday maamul xumo iyo amni darro taas oo sabab u noqotay inaanay degmo kale u gudbi karin waxaana sii ziyaaday silicii rafaadkii kufsigii xasuuqii dilkii iyo boobkii nabadiidku ay ka wadeen deegaanka oo dhan madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa soo dhigay 1999 inay ahayd xilliga soo baxeen hogaamintii caafimaadka qabtay isbedel doonka ahayd kuwaas oo tashi xeel dheer ku salaysan tahay ka yeeshay sida furdaamin buuxda loogu heli karo nabadiidkii laf dhuungashay ku noqday shacabka deegaanka qaraarkii tashigaas ka soo baxaya noqday in la sameeyo qorshe lagu aasaasay ciidamada liiw booliska oo burcadda nabadiidka lagu ciribtiro iyadoo ciidankan uu noqonayo ciidan awood sare oo xirfadda tababarka sahaayada iyo saanadaba ku leh quwad xoogan oo aan loo jeedin dhigi karin ahna wadaniyiin xambaarsan dareen shacab oo goos kasta iyo hud kasta nabadiidka ugu gali kara ciidanka liiw booliska oo markii ugu horeysay taariikhda alifkii halganka ka bilaabay deegaanka ayaa duurka galay kana fuliyay howlgallo socday muddo oo silsiladii nabadiidka lagu kala furfuray taasoo ugu dambeyntii keentay in amnigii deegaanku noqday mid la isku halayn karo cabsidii iyo walaacii nabadiidku ku hayay shacabkana laga daweeyay ayna bilaabeen shacabku inay si kalsooni leh u tabcadaan hantidooda ayna ku seexdaan nabadgelyo kuna soo toosaan iyagoo aan wax muruga qabin iyadoo marxaladaasi ay socotay intii u dhaxaysay 1999 iyo 2003 marka la joogay waxa xoog la saaray hindisidda iyo daraasadaynta qorshayaal baahida dhabta ee deegaanka ka jawaabaya si dib u dhaci horumarka iyo waliba gooldalooyinka ka jiray loo yabyabo ahmiyadda koowaadna waxa laga dhigay horumarka sida biyaha jidadka caafimaadka waxbarashada xoolaha beeraha isgaarsiinta xiriirka dadweynaha dal iyo dibad sareynta sharciga sugidda iyo sharci ku soo dabaalida soodimaha deegaanka qorshayaashaas ku shaqayntooduna waxay socotay ilaa 2007 waxaan laga gaaray natiijooyin la taaban karo oo laga markhaati kacay heer deegaan heer dal iyo heer caalamiba qormadan oo si cilmiyeysan u soo jeediyeen mas'uuliyiinta deegaanka iyo ciidamada difaaca qaranka ayaa waxaa kadib ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dalkan Itoobiya Mudane Siraaj Fageysa iyadoo wasiirku uu tilmaamay in sooyaalka deegaanku uu ahaa mid laga naxo balse ay tahay wax lagu farxo halgankii la galay nabadiidka iyo waliba hogaamintii aragtida cawriyan ku sifowday ee dhibaatada laxaadka lagu horseeday shacabka deegaanka እኔ እንግዲህ ወደ 10 ዓመት ይሆናል ይሄን ክልል ሳውቀው እንደሚታወቀው ፌደራል ጉዳዮች ያለው እዚሁ ነበርኩና 99 አካባቢ ልዩ ኃይሉ ሲደራጅና አሁን አዲስ አቅጣጫ ሰንገባም ተዘለኛል አብረን እዚህ አንድ ተሰብስበን ነበር ነው anigu deegaankan waxa garanayaa ilaa 10 sano laga soo bilaabo xilligan joogay wasaaradda arrimaha federaalka 1999 markii la aasaasay liiw booliska ay qaadanay jihada cusub waxaan xasuustaa inaan galno shir xaaladda waqtiga jirtay markaan dib u milicsano in Jigjiga laga baxo way adkeyd waayo xaaladda amniga ee goob kasta ka jirka waxay ahayd mid aad u adag oo aad u cakran
horumar muuqda ma jirin oo waxaa meesha ka maqnaa maamul qorsheeyo horumarka qaab dhismeedka dawladda sidaad saa ka sheegteenba waxaa ku jiray oo xubno ka ahaa nabadiidka oo la shaqaalayn jiray anigu isbedelka jira waxaan u nisbeynayaa dardarta xooggan ee abuurantay waa marka koowaad in ciidamada difaaca qaranku ay dib habeen ku sameeyeen jihada la dagaalanka burcadda oo laga dhigay mid professional ah oo qorshe haga leh waa marka labaad ee in shacabku la safteen hawshaas oo laga qabtay hawlo dhiirigelin leh waa marka saddexaad in xukuumadda deegaanku inay si niyad ah oo hiil ah iskugu xidhay abaabulka taasoo banka soo dhigtay dabciga nabadiidka horumarka ay dawladdu ka gelisay deegaanka waa mid soo jiitay qalbiyada shacabka welibana inay kalsooni horle ku qabaan dawladooda sidaa darteed shaqada wanaagsan ee la qabtay waa in la sii wado waxaan labada warbixinoodba ka fahanay in jihadii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ee mudane male zinaawi ay ahayd in dhibtaas deegaanka soomaalida ka jirta etoobiya muddo dhow xal laga gaadhayo intaas ay sideedii u horgashay oo dhulkan ay taabatay hogaaminta deegaanka ee waqti xaadirkani waa kuwo u jajaban abuuritaanka shacab bisil oo su-aalaha horumarka soo jeedinaya run ahaantii maadaama aad tan ku guulaysateen waxaan si kaliya laaba ugu mahad celinaya dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ciidamada difaaca qaranka iyo hay-adaha nabadgelyada sii wada ayaan idin lahay maalintii labaad ayaa waxaa howlka shirarka sayid maxamed cabdulla xasan lagu qabtay munaasabadii sanadka cusub ee ciidamada difaaca qaranka oo wasaaradda gaashaandhigga dalkan etoobiya ay sanadkan u go'aamisay in deegaanka soomaalida etoobiya uu martigeliyo munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dalkan etoobiya mudane siraaj fageesa taliyaha guud ee ciidamada difaaca qaranka ee koonfur bari etoobiya lieutenant general abraha waldamaariya madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida iyo madaxweyne cabdi maxamuud cumar saraakiisha kala duwan ee ciidamada difaaca qaranka iyo liyu booliska iyo weliba sidoo kale odayaasha deegaanka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan etoobiya mudane siraaj fageesa oo ka hadlay munaasabadan ayaa carabka ku adkeeyey in maamuladii xukunka ugu horreeyay xukuumadda deegaanku ay ahaayeen kuwo isku jahwareersan oo aan marnaba ka fikirin danaha shacabka balse guulaha ay xukuumaddu hirgelisay ay yihiin kuwo ku yimid iskaashi muwaadinimo iyo daacadnimo ku salaysanta oo aragti shacab salka ku haya oo dhex maray bulshada dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ciidamada difaaca qaranka iyo dowladda federaalka oo taageero dhinac walba la garab joogtay wasiirku waxa uu si gaar ah u ammaanay ciidamada liyu booliska oo ku tilmaamay inay yihiin muwaadiniin dhab ah oo sugay amniga deegaankooga sababna u noqday horumarka deegaankooga ka hana qaaday isla markaana ay kaalin lixaad ka qaateen la dagaalanka argagixisada al-shabaab ciidamada liyu booliska oo kaashanaya ciidamada difaaca qaranka ayaa howlgalladii ugu dambeeyay ay ka fuliyeen waddanka Soomaaliya ayaa waxay qudha kaga jiraan in ka badan 200 oo argagixisada al-shabaab ka tirsan iyagoo gacanta ku soo dhigay 38 kale isla markaana ka soo qabtay 43 gaadiid isla markaana sidoo kale gacanta ku soo dhigay hub iyo sanad badan oo al-shabaab iska lahayd wasaaradda gaashaandhigga dalkan Itoobiya ayaa go'aamisay in sanadka cusub lagu abaalmariyo shahaado sharaf aad u heer sareysa oo si cilmiyeysan u qoran ciidamada liyu booliska waxaana shahaadadaas la guddoonsiiyey General Cabdiraxmaan Cabdullaahi Buraale taliyaha guud ee ciidamada liyu booliska iyadoo shahaadadan uu ku saxeexnaa Etat-Major Shumka guud ee ciidamada difaaca qaranka General Samora Yonis ሽልማቱ ላይ ጽሑፍ አለው። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የነበረውን ሀገራዊ የደህንነት ስጋት ለማስወገድ በተካሄደው እልህ አስጨራሽ የትግል ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መንግስት ልዩ ፖሊስ ኦብነግን በማጥፋትና ብሎም abaalmarintani waxay leedahay qoraal in laga hortago waxyeelada lala beegsan karo amniga dalka halgankii dheeraa ay u galeen inay deegaanka ka tirtiraan nabadiidka ka dhaqdhaqaaqi jiray deegaanka halyeeyada ciidamada gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya la kaashanaya geesiyada ciidamada difaaca qaranka isla markaana ilaa haatan dalkaasi Soomaaliya ay ugu sugan yihiin in ay si kama dambaysa u tirtiraan ururada argagixisay sida al-shabaab sidoo kale ay geesiyadani waqti xaadirkan ku guda jiraan waajibaadkooda muwaadinimo ay ku fulinayaan awood iyo calool adeeg wadaninimo sidii geeyigan looga tirtiri lahaa isla markaana looga dabargoyn lahaa argagixisada shabaab haddaba halyeeyadani ciidamada gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya uga soo baxay si geesinimo leh waajibaadkoodii qarannimo ee nidaamka dastuurku farayay ayaa waxay wasaaradda difaaca qaranku ugu talagashay inay abaalmarintani ku muujiso aqoonsiga geesinimadooda ee halyeeyada ciidamada gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida iyagoo waliba ciidankani heegan u ah oo kalsooni buuxa ka qaba in ay hirgelin doonaan axdiga ay u galeen kamida dhalinta geedi socodka dib u curashada dalka taliyaha guud ee ciidamada difaaca qaranka ee dalka General Samora Yonis የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት
madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo munaasabada sanadka cusub ee ciidamada difaaca qaranka ka hadlay ayaa sheegay in ciidamada difaaca qaranku ay shacabka Soomaalida Itoobiya u hureen naf iyo dhiig isla markaana huritaankaasi ay shacabku ku heleen horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban waqti xaadirka ka codta deegaanka Soomaalida Itoobiya iyadoo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar uu ciidamada difaaca qaranka uu si kale laaba ugu mahadceliyay taliyaha ciidamada koonfur bari dalka Itoobiya Lieutenant General Abraha Waldemariam ayaa waxa uu sheegay in ciidamada difaaca qaranku ay la walaal noqdeen shacabka Soomaalida Itoobiya taasina ay keentay in laga farxasho hawshii nabadiidka isla markaana horumar iyo nabadgelyo la isku halayn karo deegaanka lagu soo dabaalay